السلام عليكم سور wada saaxiibayaal muuqaalkanan maanta waxaan idinku soo koobayaa film aad u xiiso badan oo kamid ah aflaamta la sii daayay sanadkan ku jirno ee 2022 filmka waxaa lagu magac daray Gold balse intaynan muuqaalka hore u galin ha ilaawin inaad dawo soo biirto adigoo subscribe saaraya muuqaalkana like saar mahadsan muuqaalka ugu horeeya filmka wuxuu ku bilaabanayaa tareen dhex maraya meel saxara ah dadka tareenka saaran waxaa kamid ahaa nin faqiir ah oo shaqo doon ah oo lagu magacaabo Virgil dhinaciisa waxaa fadhiday naag ilmo yar wadata waxay kadib tareenkii uu istaagay Virgil ayaa ka soo degay kadib markii uu ka soo degay tareenkii Virgil wuxuu aaday goob dhismo ah oo halkaas uu ku arkay nin daawanaya TV-ga oo uu la hadlay isagoo wax ka weydiiyay wax ku saabsan la kulanka qofka la rabay inuu u qaado xarunta shaqada si kastaba ha ahaatee ninkii oo daawanaya TV-ga ayaa iska indhatiray Virgil kadibna wuxuu weydiistay musqul ninkii oo TV-ga daawanayay ayaa ugu jawaabay isagoo farta ku fiiqaya jihada suuliga markuu tagay suuliga wuxuu arkay tuqsi wasaqaysan ee suuliga ku habsaday Virgil ayaa isfududeeyay isagoo isdejinaya ayaa cod dibadda ka soo baxay oo weydiinaya inuu yahay kii xarunta tagayay Virgil waxa uu ku jawaabay haa kadib wuxuu aaday meel birkad ah oo madaxa iska dhaqayay markaas waxaa lagu amray inuusan khasaarin dhibic biyo ah iyadoo ay adkayd in daqiiqado kadib la helo biyo Virgil oo socdaalaya isagoo la socda darawalka Keith ayaa darawalka Keith ku bilaabay inuu u sharxo kharashka safarka iyagoo wadada ku sii jira Virgil ayaa ka dhageysay warka ka soo baxaya raadiyaha gaariga kadibna si lama filaan ah ayuu taayirkii baabuurka banjaray labadii way ka soo degeen oo waxay ka shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa taayirkii waxay arkeen laba ay oo durjoog ah oo isdilaya darawalka ayaa dulmaray aygii dhaawac ahaa oo eriyay aygii kale kadib markii ay hagaajiyeen taayirkii ay ku soo noqdeen wadadii muuqaalka xiga waxay bilaabeen Virgil iyo Keith inay nasiino qaataan waxay damiyeen baabuurkoodii si ay u nastaan maadaama ay habeennimo tahay darawalkii ayaa weydiiyay Virgil inuu meel fiican ka yimid iyo in kale Virgil waxa uu u cadeeyay waxa inta keenay inay baahi tahay oo ay xaaladdu halkaa ka sii xun tahay kadib darawalkii waxa uu weydiiyay Virgil sababta uu u doortay inuu aado xarunta shaqada Virgil waxa uu yiri waxaan u socdaa fursad nololeed oo dhan darawalkii wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo Virgil inaysan jirin nolol ka fiican oo ka jirta xaruntaasi Keith oo darawalka ahaa wuxuu intaa ku daray in dhammaan ay meesha ku arki doonaan inay jirto kaliya shaqo adag si kastaba ha ahaatee Virgil wuxuu u sheegay Keith inuusan ka cabsanaynin foosha adag ee soo socota subaxda xigta Virgil iyo Keith ayaa dib ugu soo laabteen wadada Virgil ayaa bilaabay inuu kaxeeyo baabuurka halka Keith uu nasanayo Virgil wuxuu kordhiyay AC-ga gaariga waxayna taasi keentay in matoorka gaariga uu dhaco darawalka ayaa ka xanaaqay Virgil isagoo u sheegaya inuu uga digayo inuusan AC-ga dambe u daarin Virgil waxa uu raaligeliyay Keith waxa uu u sheegay in ay u badan tahay in tuubadu ay u baahan tahay hagaajin daqiiqado kadib Virgil wuxuu u baxay inuu istajiyo kadib wuxuu arkay dhagaxaan wuxuu isku dayay inuu baaro markuu halkaas gaaray waxa uu ogaaday inuu kamid yahay dhagaxaanta dahabka Virgil wuxuu u yeeray Keith si uu u yimaado oo uu u hubiyo Keith ayaa halkaas gaaray oo la soo baxay dabshideeyaha wuxuu ku dhahay hadii uu gubo oo uu mudoobaado inuusan ahayn dahab kadib markii uu gubay Keith ayaa xaqiijiyay inuu yahay dahab wax yar kadib waxay bilaabeen labada nin inay qodaan si ay u helaan dahabkii ayaa soo muuqday balse waxay ogaadeen inuu ka weyn yahay sidii ay moodayeen kadib waxay dahabka ku xireen xarig oo ay ku xireen baabuurka si ay uga soo saaraan balse dahabkii wuu dhaqaaqi waayay xarigii ayaa go'ay waxa ay mar kale isku dayeen inay meesha ka soo saaraan balse isla arrintii ayaa dhacday oo xarigii ayaa go'ay Keith waxa uu bilaabay qodista godka wax yar kadib Virgil ayaa ku soo biiray qodista labadooda waxay isla qodayaan godka dahabka balse dahabka aad ayuu u weynaa uu ka soo bixi waayay Keith ayaa baxay si uu u helo xaabo ama qoryo oo ay u shidaan dab si ay uga hortagaan eeyaha duurjoogtada ah markay mugdi noqoto Virgilna wuu la socday iyagoo fadhiya agagaarka dabka Virgil iyo Keith ayaa ka sheekeynaya sida ay noloshoodu ku dhowdahay inay isku bedesho Keith ayaa istaagay isagoo boodboodaya si xamaasad leh isagoo qaylinaya oo leh waxaan ka helnay dahab habeen dambe Keith ayaa u sheegay Virgil in mid iyaga kamid ah ay tahay inuu berri aado si uu u keeno cagaf oo ay dahabka ka soo saaraan godka halka midka kale uu ilaalinayo dahabka Keith wuxuu soo jeediyay in Virgil uu tago laakiin Virgil ayaa diiday oo Keith u sheegay in isaga yahay kan si sax ah u garanayo meesha laga helo cagafka oo ay tahay inuu noqdo qofka aadaya Keith wuxuu u sheegay Virgil in maadaama uusan ka soo jeedin agagaarkaasi laga yaabo inuu waayo cagafka Keith waxa uu ogeysiiyay in uu ku sii noolaan doono saxaraha kadib Keith waxa uu intaa ku daray in safarka
qaadan doono 5 maalmood. subaxda dambe labada nin ayaa kala qaybiyay keydkooda biyaha. Keith waxa uu Virgil siiyey daab si uu isaga difaaco xayawaanada iyo telefoon si ay u wada xiriiraan. wax yar kadib Keith markuu baxay, Virgil waxa uu samaystay daan si uu isaga ilaaliyo qoraxda. kadib waxa uu tijaabiyey telefoonka si uu u eego inuu shaqaynayo iyo in kale. maalintaa kadib Virgil waxa uu u tagay xaabo. markii uu soo noqday waxa uu arkay hangaraale uu iska eriyey. isagoo dabkii ag fadhiya ayuu habeenkii casheeyey. wax yar kadib waxa uu maqlay dhawaqa xayawaanada, wuuna cabsaday. subaxii dambe ayuu soo toosay isagoo aad u daalan. waxa uu aaday si uu biyo isku qaboojiyo, laakiin wuxuu soo xasuustay inuu haysto wax yar uun. kadib telefoonkii ayaa soo dhacay. Virgil ayaa telefoonkii raadinaya, balse intuusan meeshii gaarin wicitaankii ayaa istaagay. kadib wuxuu u baxay si uu xaabo u soo qaato. markii uu soo noqday, Virgil waxa uu ku fikiray inuu wax yar ka bedelo goobtii dahabka ahayd. maalintaa kadib Virgil waxa uu dhex wareegay saxaraha. waxa uuna helay diyaarad burburtay. Virgil waxa uu go'aansaday inuu ku nasto diyaaradda burburtay. muddo kadib waxa uu ka soo saaray qaybo ka mid ah diyaaradda oo uu jiiday goobta dahabka ah oo uu ka dhigtay mudul oo uu habeenka ku seexday. habeenkaas wax yar ayuu ka seexday. kadib maalintii Virgil waxa uu soo toosay isagoo aad u daalan, maqaarkiisuna ka gubtay saameynta kuleelka qoraxda darteed. waxa uu u gudbay dahabka oo uu halkaas iskula hadlaya isagoo fadhiya. Virgil waxa ku soo dhacday fikrad ah inuu dahabka jebin karo. daqiiqado kadib wuxuu isku dayay inuu jebiyo qayb ka mid ah dahabkii, wuuna ku guuleystay inuu jebiyo. kadibna telefoonkii ayaa soo dhacay. Keith wuxuu ku wargeliyey Virgil inuu sii joogi doono wax ka badan intii la filayay, sababtoo ah matoorka baabuurka ayaa aad u kululaaday. Virgil ayaa u sheegay Keith inuu jebiyey dahabkii, laakiin Keith ayaa u sheegay inuu dahabka la joogo isla markaasna uu soo noqon doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Virgil habeenkii waxaa soo weeraray xayawaano duurjoogtada ah, balse waxa uu isaga difaacay qaar ka mid ah xaabada. subaxdii xigtay, Virgil isagoo biyo cabi raba waxa uu arkay mas. waxa uu damcay inuu dilo maskii, balse wuu ka baxsaday. kadib gadaal ayuu fiiriyey. waxa uu ogaaday inuu daadiyey biyihiisii inta ugu badnaa, isagoo isku dayayay inuu mas dilo. biyihii ayaa wax yar ka haray. maalintii xigtay, Virgil isagoo jooga goobta diyaaradda ku burburtay ayaa wuxuu arkay naag ku soo socota. wuxuu ku dhuuntay diyaaradda dhexdeeda isagoo qaybtiisa dahabka wata. naagtii ayaa u timid oo u sheegtay inuu ka soo baxo goobtii uu ku dhuumanayay. naagtii ayaa cunto u keentay, balse wuu diiday. markaasi ay su'aal ka weydiisay waxa uu Virgil halkan ka qabanayo iyo inuu keligiisa yahay. wax ay Virgil weydiisay halka uu geynayo qaybo ka mid ah diyaaradda ee uu ururinayay, balse Virgil ayaa isaga dhaga tiray. naagtii ayaa daqiiqado kadib istaagtay oo aaday dhankii iyo dahabka, balse Virgil ayaa ka daba tagay oo u sheegay inuu halkaasi ka heli karo jajabka diyaaradda oo keliya. kadib naagtii Virgil ayay daba socotay oo waxay su'aal ka weydiisay sida uu saxaraha ugu nool yahay. markaasi ayaa waxa carooday Virgil oo u sheegay inaysan waxba ka gelin. kadibna Virgil waxa uu dareemay madax xanuun. naagtii waxay u sheegtay inuu waqtigiisa qaato oo uu nasto maadaama uu nasiino u baahan yahay. naagtii waxay bilowday inay u socoto goobtii dahabka, balse Virgil ayaa daba socday isagoo ku qaylinayay. markay gaartay goobta dahabka ahayd, naagtii waxay ogaatay in Virgil uu wax qarinayo. kadibna Virgil naagtii ayuu madaxa wax kaga dhuftay. daqiiqado kadib Virgil naagtii ayuu aasay kadib markii uu ka qaatay wax kasta oo uu uga baahan yahay. wax yar kadib eeyaha duurjoogtada ah ayaa qoday xabaashii. Virgil ayaa eriyey eeyaha oo u jiiday meydka meel fog, halkaasi oo uu ku gubay. subaxdii xigtay, telefoonka qaylidiisii waxaa ku soo toosay Virgil. Keith ayaa u sheegay Virgil inuu helay cagafka oo uu imaan doono. Keith ayaa u sheegay Virgil in ay qaadan karto waqti badan intii la qorsheeyay. ka hor inta aanu tagin goobta dahabka, waxa uu ku dhiirigeliyey Virgil inuu is adkeeyo. kadibna Virgil waxa uu weydiiyey goorta uu Keith hagaajinayo tuubada, laakiin Keith waxa uu xasuusiyey Virgil inuu horeba u sameeyay oo uu hagaajiyey inta aanu ka tagin. Virgil waxa uu wax badan iska indhatiray biyo la'aantiisa. kadib waxa uu arkay gaari meesha maraya. maalintaa kadib, Virgil waxa uu u soo baxay xaabo. waxa uu arkay duufaan aad u weyn inay soo socoto. waxa uu u orday hoygiisii si uu u qaato saqafka. isagoo ku jira gudaha hoyga ayaa duufaantu ka qaaday hoygii. duufaanta iyadoo socota, Virgil wax yar kadib waxaa ku dhacay laanta geedka. Virgil wuxuu soo toosay isagoo uu ku dhex jira ciidda oo geed calooshiisa dhex galay. isagoo xanuun haya ayuu aayar u dhaqaaqay halkii uu gabaad ka dhiganayay si uu u hubiyo in qaybtiisii dahabka ahayd uu weli meesha taalo. waxa uu ka helay dahabkii, balse waxa uu waayay dhammaan sahyadiisii oo ay ku jiraan cunto iyo biyo. isagoo dhulka ku gurguuranayo xanuun dartiisa, waxa uu tagay goobtii dahabka si uu u hubiyo in ay weli taalo qaybtii dahabka ahayd. kadib wuu suuxay. wax yar kadib Virgil wuu soo naaxay. wuxuu iska saaray geedka calooshiisa ku jiray isagoo aad u dhiig baxaya. kadibna wuxuu shiday dab,
wuxuu kululeeyay daasad aad ayuu u xanuunsaday isaga oo gubaya meesha dhaawaca ah. dareere ayuu iska soo saaray kadib ciidii ayuu isku qasay oo wejigiisii mariyay. wax yar kadib Virgil ayaa indhihiisii kala qaaday waxa uu arkay naag qaanso madaxa ku fiiqaysa. daqiiqado kadib naagtii ayaa siisay biyo isagoo oo dhulka jiifa. mar kale Virgil ayaa laga soo wacay taalka Keith. intuu hareeraha eegay waxa uu waayay naagtii. waxa uu u qaatay inay tahay dhalanteed isagoo la hadlaya Keith. koolka kadib haweenaydii ayaa u timid oo weydiisay inuu gaajaysan yahay. naagtu waxay u eg tahay naagta uu dilay. waxay u fidisay caawimo laakiin Virgil wuu ku qayliyay wuxuu ku amray inay isaga tagto balse wax jawaaba ma siin. markaasi ay baxday. kadib markii uu soo toosay waxa uu isku arkay dab isaga ku hareeraysan iyo eeyaha durjoogtada ah inay isagu ku hareeraysan yihiin. Virgil ayaa wacay Keith isagoo weydiinaya halka uu marayo. Keith wuxuu u sheegay inuu ku dhow yahay. Virgil wuxuu u sheegay Keith inuu u baahan yahay inuu degdego oo uu soo dhaqsado iyadoo eeyaha ay isku dayayaan inay weeraraan isaga. kadibna Keith isagoo meel fog joogay oo fadhiya oo eegaya Virgil isagoo isticmaalaya telescope ayuu arkay inay eeyaha soo weerareen oo ay jiidayaan Virgil. eeyihii waxay bilaabeen si toos ah inay u weeraraan Virgil oo ay cunaan. Virgil isagoo aad u eegaya dahabkii. kadib Keith ayaa la yimid cagafka isagoo hoos u eegaya jirkii Virgil. wuxuu aaday dhinaca baabuurka si uu wax u soo qaado. markii uu soo jeestay ayaa fallaar xabadka loogu dhuftay. dhulka ayuu ku dhacay isagoo isku dayaya inuu ogaado qofka toogtay. wuxuu khiyaamay saaxiibkiisii si uu dahabka keligiisa u haro isagana muusan helin dahab. ilan horaa loo yiri طمعا كثير يموت في الطريق. filimkeena maanta halkaasi ayuu ku dhamaaday. fadlan si aad u hesho aflaam aad u xiiso badan inagu soo biir adigoo subscribe taabanaya gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalo kasta aynu soo gelino. haddii aad horeyna la joogtayna ha ilaabin inaad like saarto si ay muuqaalada xiga ku soo gaaraan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada quruxda badan.